madaxweyne faahfaahinna ka soo baxaya qarax ganacsade lagu dilay ayaa ka dhacay isgoyska baar uwax ee magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku sii ambaqaadayo waryahayaga mahad maxamed cabdiraxmaan mutawakil. qaraxa oo nuuciisu ahaa mid lagu soo xiray gaari ayaa ku qarxay isgoyska baar uwax ee magaalada muqdisho waxaana ku geeriyooday ruux la sheegay inuu ahaa ganacsade wadayna gaariga qarxay waxaana la saarneed xilligaasi misna ka badbaaday haweeney la sheegay inay ahayd marwada u dhaxda ruuxa geeriyooday sida idaacadda Shabeelle ee Muqdisho u xaqiijiyay Faarax Cabdullaahi Cali oo ay walaalo ahaayeen marxuumka geeriyooday. waxay waxa u dhahay in ganacsado ahaay oo naga taga suuqa aastay daan dardaanka ilaahay oo naxariisto ganacsado ahaay oo qodaari oo ahaay miskiin oo iska xamaalayo ahaay Allah naxariisto oo waayeel tacbaan oo cad oo ka tagay adduunka tacbaan cad ilmo yar oo yiri oo shaqeeyay baabuurka waxa lagu xiray gaariga waxa lagu xiray وإحنا كمرة وركم هاي المسكين وكهاي نيرة معلم محمد علي نيرة معلم محمد بارها ma jirto cid sheegatay dilka ruuxa la sheegay inuu ahaa ganacsade saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay oo ah isgoyska Baarwax waxaana halkaas ay ka sameeyeen baaritaano kooban inkastoo aysan si rasmi ah aysan ugu warbixin natiijada baaritaanka ay sameeyeen. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis rasmi ah laga gaaray khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya maamulka Puntland. wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxaa ku helinayay socdaalka uu ku tagay Boosaaso wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan wasiirka kalluumaysiga Cabdullaahi Bidhaan wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. xubnahan oo deegaan doorashadoodu tahay deegaanada Puntland ayaa waxa uu madaxweyne Farmaajo u wakiishay inay dhameeyaan khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Puntland oo ay ku matalaan dowladda dhexe. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo la hadlay warbaahinta markii ay dib ugu soo laabteen Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay Boosaaso kulan kula qaateen in ka badan 8 saacadoodna ay kula yeesheen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo xubno kale oo ka tirsan madaxda ugu sareysa maamulkaas. wuxuu sheegay in madaxda maamulka Puntland ay kala hadleen sidii loo dhameyn lahaa khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay inay ballamo hordhac ah ka soo yeesheen sidii loo dhameyn lahaa khilaafkaasi. socdaalka iyaga ujeedadiisu wuxuu ahaa inaanu la kulanno madaxweynaha Puntland iyo maamulkiisa oo aanu ka shaqeyno sidii la isugu soo dhawaan lahaa. arrintaas anagu waxaan filaynaa inaan guul fiican ka soo gaaray. madaxweyne Siciid Dani wuxuu aad buu u soo dhaweeyay arrintaas wuxuuna naga ballan qaaday inuu aad uga shaqeyn doono soo dhawaanshaha yareynta khilaafaadka iyo abuuridda kalsooni dhexmarta maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale wasiir Cawad ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxa iyaduna oo waqti badan ahayd 8 saacadood oo isugu jiray Case Sharaf kulan loo yeelanay madaxweynaha iyo xubno kamid ah golihiisa waxa iyaduna sheekadii soo gashay doorashada Jubbaland. arrinta iyada ah waa ku kala duwan annaga iyo madaxda maamulka Puntland. annaga mowqifka iyagu waa mowqifka xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo aad wada ogtihiin. wasiirka ayaa tilmaamay inay rajo wanaagsan ka qabaan wada hadalladan in lagu gaaro isfahan siyaasadeed oo meesha ka saari kara muranka siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya maamulka Puntland. markana shacabka magaalada Dhuusamareeb ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay guddiga farsamada ay dowladda u magacaawday doorashada Galmudug. waryahayaga Xasan Wali Sheekh Abubakar oo la shaqo halkaas u jooga ayaa warkan ka soo diray halkaasi. xubnaha guddiga farsamada ee ay magacaaday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxa u badan dhalinyaro waxaana wasaaraddu ay sheegtay in ay ku saleysay awood qaybsiga beelaha dega Galmudug. tira ahaan waxa ay ka badan yihiin intii hore loo filayay oo ahayd 12 xubnood. dadka reer Galmudug oo aad u sugayay magacaabida guddigan ayaa qaarkood soo dhaweeyay guddiga la magacaabay iyagoo oo sidoo kale dardaaran siiyay. magacaygu waa Musharraf Cabdi Axmed. waxaan u arkaa guddiga inuu yahay guddigii loogu talagalay
guddiga doorashooyinka ee ka bixi lahaa galmudug inay u dhisaan dowlad loo dhan yahay waxaan ku sababaynayaa inuu guddigan u badan yahay guddi dhalinyaro ah aqoon-yahano ah dowladnimada kasoo shaqeeyay marka waxaan isleeyahay aniga aragti ahaan inuu yahay guddiga ku habboonay ee loo magacaabi lahay inay dowladda ay dhisaan galmudug waxaan ka filanayaa inay si wanaagsan u soo xulaan xildhibaanada galmudug ay yeelan doonto habsama socodka doorashada inay si wanaagsan u maamuli doonaan inay dadka ay macnaha ay noqon doonaan dadka macnaha matalaada dhabta ah reer galmudug dadka ka turjumi doona inay yihiin anigoo magacaygu yahay Dr. Bishaar Sharif Faarax ahna dhaqaatiirta deegaanka iyo dhalinyarada aad ayaan soo dhaweynaynaa uguna faraxsannahay guddiga maanta ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka runtiina waxaa la dhihi karaa waqti iyo juhdi ay geliyeen waana guddi aan dhihi karno wuxuu samata bixi karaa doorashada galmudug aan rajeynayno inay ku dhalato dowlad loo dhan yahay oo tayeysan oo toosan waa mahadsantihiin Shabelle TV magacaygu waa siyaasi maxamed axmed xoosh ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada galmudug waxaan u arkaa tilaabo wanaagsan inay tahay xilligeedii kusoo aaday intaas kadib waan bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa guddiga farsamada ee wasaaradda arrimaha gudaha ay magacawday waxaan rajeynayaa inuu noqdo guddigii maamulka ay dhisaan in 4 sano kadib aan guddi loo baahan doono maamulkaas asaga lugihiisa isku dhigis doono dowladda run ahaantii musharaxiinta galmudug ee xildhibaanada 85% hadda u taagan inay xilkaas qabtaan xildhibaanada galmudug waxay u badan yihiin dhalinyaro run ahaantii waxaan aaminsanahay haddii majority-ga xildhibaanada galmudug ay kusoo wada baxaan sida hadda dhalinyarada ay ugu wada badan yihiin in galmudug cageeda ay ku istaagi doonto horumarada iyo maamulada kaloo la midka ama dariska laha horumarada ay tiigsadeen ay si dhaqsi ah ay ku gaari doonto iyadoo meeshaasna ay kasoo bixi doonto in galmudug loo aayo midaysan horumarsan lana jaan qaadi karto maamulada dariska ah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdiqaadir cali cilmi guddiga farsamada ee magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waa soo dhaweynaynaa waxaanan isleenahay waa guddi miisaaniyadiisa leh iyo culeyskiisa leh waana sugayna insha allahu tacaala waxaanan rajaynaynaa khayr insha allah laakiin arrinta xusida mudan ee aan la iska indhatiri karin ayaa ah ahlu sunna oo awood muuqata leh kuwaas oo heshiisyo hore ula galay dowladda Soomaaliya inkastoo war rasmi ah uusan ka soo bixin hoggaanka ahlu sunna haddana fariin uu barta Facebook ku soo qoray Cabdirasaaq Al-Ash'ari oo ka mid ah madaxda ahlu sunna ayaa laga dheehan karay in culimadu aysan ku qanacsanayn magacaabista guddigan farsamada sidoo kale xubnaha la magacaabo kuma jiraan shakhsiyaad la yaqaan oo aad ugu dhow Sheekh Shaakir iyo Macallin Maxamuud kuwaas oo ah xubno saameyn badan ku leh waxa ka soconaya magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha aqalka sare ayaa xukuumadda ugu baaqay in la dhiso golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliya sida mar kale warkan uu ku faahfaahinayo Mahad Maxamed Cabdiraxmaan cabdi xaashi cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka ayaa ka codsaday xukuumadda Soomaaliya inay soo dedejiso dhismaha golaha adeega garsoorka dalka waxa uu sheegay guddigaas in xilligan baahi weyn dalka uu qabo wuxuuna intaa ku daray muhiim uu sheegay inay tahay in xukuumadda iyana ay soo magacaabaan gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ee dalka uu yeesho xilligana loo baahan yahay in laga dhexbaxo isqabqabsiga u dhaxeeya mararka qaarkoodna dhex mara xukuumadda iyo waliba madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira inaan baaq u diro xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka waxaan ugu baaqayaa xukuumadda federaalka inay si degdeg ah u dhisto golaha adeega garsoorka oo saldhigu u noqonaya helitaanka garsoor madax bannaan si ay u dhisanto maxkamadda dastuuriga ee iyadu u xil saaran go'aanka gaarista khilaafka dastuuriga ee laba heer dawladeed ee dalka iyo hay'adaha kale ee dawladda goluhu wuxuu ku boorinayaa labada heer dawladeed ee dalka inay si degdeg ah u bilaabaan wadahadal lagu dhammaystirayo khilaafaadka u dhaxeeya labada heer dawladeed ee dalka si looga baxo dhibaatada iyo dib u dhaca aynu ku jirno
loona tudho ummadda soomaaliyeed golaha aqalka sare wuxuu u diyaar yahay inuu gacan ka geysto soo afjaridda khilaafkaas. hadalkan ayuu ka jeediyey guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi isagoo shalay muqdisho ugu qayb galay munaasabadda furitaanka kalfadhiga 6aad ee golayaasha baarlamaanka. munaasabadaas waxaa si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. halkaas ayuu ka jeediyey khudbadiisa dastuuriga ahayd. maamulada degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa kulan iskaashiga amniga ku yeeshay magaalada Baydhabo. gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolada deegaanada koonfur galbeed ayaa shirkaasi waxay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed kaasoo looga hadlayay iskaashiga amniga iyadoo sidoo kale looga hadlay sidii koonfur galbeed ay ku heli lahayd deegaanada gacanteeda ka maqan. inta shirku uu socday waxaa la iskula soo hadal qaaday qaabkii loogu shaqeyn lahaa dowlad wanaagga. waxaa la filayaa in maanta shirkaasi la soo gabagabeeyo. haddaba waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose Cabdullaahi Waafow. waxaan halkaasi u nimid inaan ka qayb galno shir weyn oo halkaas ka furmay oona loo furay maamul goboleedyada koonfur galbeed Soomaaliya iyo degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya. shirka run ahaantii waxaa la soo jeeday ama la suug yimid ama loo hadlayay sidii loo dardargelin lahaa maamul dhisidda degmooyinka iyo degmooyinka ka maqan gacanta dowladda sidii loo gaari lahaa iyo maamul wanaagga koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maaragtay muxuu ahaay shirkaasi loogu hadlayay. hore madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii koonfur galbeed ay al-shabaab ugu saari lahayd deegaanada ay gacanta ku haystaan isla markaana ay gacan ugu dhigi lahaayeen deegaanada weli gacantooda ka maqan. halka warkaasi waxaad ka dhageysanaysaana waa idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho. markana wararkii dibadda. militariga Turkiga ayaa bilaabay duulaan dhulka ah oo ku beegsanayo waqooyiga Suuriya saacado kadib markii diyaaradihiisa iyo madaafiicda goobta duqeeyeen deegaano ay ka taliyaan xogaga Kurdiyiinta. ciidamada Turkiga oo kaashanaya jabhado Suuriyaan ah ayaa galay aagga bariga webiga Furaat sida ay sheegeen saraakiil Turkiya. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ujeedada howlgalkan ay tahay sameynta aagga ammaanka ah oo laga sifeeyay xogaga Kurdiyiinta deetada markaasi la dejin doono qaxootiga Suuriya. xogaga Kurdiyiinta ee garabka u ah Mareykanka ayaa wacad ku maray inay iska caabin doonaan duulaankaasi. duulaanka Turkiga ayaa bilowday maalmo kadib markii madaxweyne Trump ciidanka Mareykanka uu ka saaray deegaankaasi weerarkii ka dhacay taasoo u muuqatay inuu ogolaansho siiyay xukuumadda Ankara. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaliilay weerarkaasi isagoo ku tilmaamay mid uu